maxamed abiib wuxuu ku fadhiyay codka shacabka reer awdal waxa lagu haystaa SNM buu wax ka sheegay waana SNM annagaan ogolayn ka mid ma nihin 19 baan noogu dambaysay kuway leeysaanahay annagu SNM oo ka xanaaqaya dastuurkii hadda duusayna bixiyow adna madaxweyne ma ahaanaysid isaaqadaadu hanayso haw hadda dastuurkaas ay naga dhaxeeyay biisay dastuurkii oo xoog iyo jigjig samaysay madaxweyne nooma ahaanaysid annagana war dalka hadii xukun military la galiyana hala noo sheego hadii xukunkii rayidku shaqaynayo adeer sidani ma shaqaynayso cid gaara loo jeedaa cid gaara la taargad garaynaya weli baan waxaan kuugu darayaa soo daabaa lagu leeyahay hayso in abiib hayso ha ku xidhnaado intuu doono hayso marka wixii baa laga dheefana hal la arko arrintaasna laga soo bari mayno waxa lagu doonayaa dhici doonta hadii laga deyn waasida waxa laga doonayaa dhici doonta in ka lagu doonayo anu waxaan leeyahay hadalka badin maayo maxaa la abiib wuxuu ku xidhay xaq darro gobol qoro uma xidhnee Soomaaliland oo dhan buu ka xidhay sidaa darteed waxaan anagu leenahay musabbixi hasiidaya maxamed abiib ha ka sii daayo jeelkan ma dheeray markiiba la geeyay ha ka sii daayaan leenahay sababtoo isagoo boorama joogo wax dhacay oo boorama ka dhacay ma jirin intaas soo halka joogtay nabadgelyo ka wada shaqaynaysa waxay uga shaqaynaysaa in halka waxba ka dhicin shalayna uu naga dhaqaaqay anagoo codsanayno nala hadlo waxa weey musabbixi sidan uu ku socdaa ka bedelo dadka ina kaana haddaan la sii daynin annagu garamayno waxa lagu doonayay bari mayno waxa lagu doonayaa dhici doonta hadii laga deyn waasida waxa laga doonayaa dhici doonta in ka lagu doonayo waar waxa weey waxa lagu socdaay de waa arrinka reer ma shaqaynayo meeshana ma waa lagu kala tagay ma waxba la wada yeelan ma waa lagu kala tagay ma waxba la yeelan waxaan leenahay in kaasi dhaqsaa loo soo daayo horta maxamed abiib wuxuu xidhayay madaxweynaha qaranka waxa afduubtay waa madaxweynaha qaranka maxamed abiib wuxuu ku fadhiyay codka shacabka reer awdal waxa lagu haystaa SNM buu wax ka sheegay waana SNM annagaan ogolayn ka mid ma nihin 19 baan noogu dambaysay kuway leeysaanahay annagu SNM oo ka xanaaqaya SNM reer baale reerkii lahaa ku ekaadaan leenahay haddii la xidhayo wixii SNM diiday gadabuurso dhawaan la soo xidhaa xildhibaan maxamed abiib wuxuu afduuban yahay madaxweyne Muuse Biixi iyo inta SNM jecel buu afduuban yahay haddii Soomaaliland jirto la wada leeyahay xildhibaanka 24 saac gudahood faraha looga qaado haddii kale dhammaan gadabuurso la xidho waxaan ahayn ma soconayso sharci baa laga hadlay war wax sharci la yiraahdo ma socoto sharcigu ma dhulmaantiga gadabuursi buu qabtaa shalay baa xildhibaan dhakool oo xasaanadiisii qaban la xidhay xukuumadda Muuse Biixi xidhay gobol dhan baa dartii u go'ay maanta la xidhayaa maxamed abiib oo xasaanadiisii wata xalay baa gabooyihii la leynayay salaadiintoodii warda Soomaaliland hadday noqoto isaaqlaan oo isaaqaan la xidhayno dadka kale la xidhayo baashu isaaqlaan noqoto SNM baa la isku xidhayaa ogolaan mayno weligeena ogolaan mayno dadka raawada waxaan leenahay waar isdajiya maxamed abiib xorriyadiisa loo soo celinayaa way ku khasban tahay Soomaaliland in xorriyadiisa soo celiso haddii kale awdal bay waayaysaa saddex hay'adood baa dalka maamula hay'adda baarlamaanka hay'adda maxkamadda iyo hay'adda fulinta saddexdaas maamula goorta xukun military wadanka lagu soo rogay anagu ma garanayna baarlamaankii la xidhay waxa ku xigi doonaana waa in xaakinada iyo salaadiintana la xidho war dalka hadii xukun military la galiyana hala noo sheego hadii xukunkii rayidku shaqaynayo adeer sidani ma shaqaynayso cid gaara loo jeedaa cid gaara la taargad garaynaya maxamed abiib wax dambi uu galay anagu ma ogin madaxweynuhu awdal buu nala joogay ma oga wax abaabul awdal ka wadayna madaxweynaha marxaati ka nooga hadii abaabul marxaati awdal ka wadayna maxamed abiib de waa la arki lahaa oo madaxweynaha ka soo bixi lahayd waad arkaysiin sidii loo soo dhaweeyay iyo sidii maaragta wax weeyaan caleemaha qoyan loogu lulayay war waa la isdhafoor taabanaya inamadii yaryaraay lahaa xiniyaha laga saaro xalayna way hanjabayeen kuwii lahaa reer boorama hooyadii waxa ku sameeyay abii waxa ku sameeya xalayna way hanjabayeen war sharciga Soomaaliland ma qolun buu qabtaa shalay baad ogeydeen wixii hore dhacayay nimanka gabooyay odaygu ka hadlay baad arkaysiin sidii loola dhaqmayo maxamed abiib baad arkaysiin sida loola dhaqmayo maxamed abiib hadii dambi loo haysto maxkamaddu warqad ay geysa baarlamaanka ku filaa inaan loo dhiibo la yiraahdo ninka waa loo baahan yahay su'aalaha la weydiinaya noo kaalay baa ku filayd laakiin qaabkan loo xisaabtamaya waa sidii militariga wadanka madaxweyne hadii xukun militari aad ku soo rogtay dadka u sheeg annaguna markaa waan ku qancaynaa laakiin hadii ay xukunkii aanu ogeynaa lagu soo doortay maxamed abiib shaqaynayo degdeg faraha looga qaado
intii ay baarlamaanku yiraahdeen baan anagu ku daba joognaa muddadana intii ay qabteen baan ku daba joognaa baaqa labaadna waxaan u dirayaa salaadiinta iyo dhaqanka Soomaaliland oo dhan baan u diraya ceeri gaabo burco berbera hargeysa gebilay de hadla haddaan anagu gardaranahay qabtade reer awdal haday gardaranayn far dheeraatay noqdeen war de hadla haddaan anagu saxanahayna taageera dambi hana lanaga daayo dulmiga iyo maaragtaa waxa weeyaan dhibaatada lanagu hayo anigu hadal aan si iraahdo haray halka ma jiro waxa weey waxaanu ku shaqaynaynaa sharci ilaahay ma waa tasuur samaysanay tasuurku hadduu ina kala xukumi waayo madaxweyne ma ahaanaysid waxaad madaxweyne ku tahay tasuurka weeyaan in abibna xildhibaan ku yahay cid baanu u taagnayna waan u codaynayna waxaanu ugu taagnay tasuurkaas ahay tasuurkii haddaa duusayna bixiyow adna madaxweyne ma ahaanaysid isaa qadaad u hanayso haw haddaa tasuurkaas ay naga dhaxeeyay biisay tasuurkii oo xoog iyo jigjig samaysay madaxweyne nooma ahaanaysid annagana waxa isku xidhan wallahi burburka Soomaaliland iyo waxa isku xidhan iyo in abiib isku xidhan in abiib haddaad garato inaad haysato dhulka u kala kacnana hayso haddii aad dawladnimo iyo rajo iyo inaad isku sii maalmo noolaana aad ka qabtana faraha ka qaad halkan waxaad arkaysaan odayaal badan oo madax dhaqameedkii reer awdal oo taagan waxaan u soo taaganaan halkan u imanay marka koobaad inaan shacabkayaga la hadallo marka labaad aan xukuumadda dawladda la hadallo arrintaas oo ku saabsan xildhibaankii airportka laga xidhay xildhibaan Abiib Yuusuf Maxamed Abiib Yuusuf jaamac oo ku xidhan muddo 4 habeena sidaan maqalay jeelka ma dheera yaanu ka hadlaynaa waxaan codsanaynaa shacabka iyaga horta ka codsanaynaa inay istajiyaan in arrinta ay fogaanaynan dibna lahayn laguna marmarsiyoonin shacabka gadoosani inay dib sameeyaan waxay keenaysaa wax khasaaro ma keentay faa'iido ma keento waxaanu leenahay Maxamed Abiib uu soo baxaya soo doonaa ku soo baxo waana xildhibaan maanta hataa inoo cadaynaysa inay baarlamaanku laaleen eedihii oo dhan ay yiraahdeen 24 saac lagu sii daayo intaaba inaga filan in aniga waxba lagu hayn cidii kale hadasha de waxa weeyaan waxaanu aragnaa khalad inay hay'adaha dawliga iyagu istixgalin waayaan baarlamaanku waa dadkii shacabku doortay kuwaasuna Abiib Yuusuf Abiib kamid yahay Maxamed Abiib waxa xidhan 7,000 oo shakhsi oo shacabka reer Soomaaliland codkoodii oon loo sheegin dambiga waabi ku jiro Abiib waa Maxamed ku jiro Maxamed waa shakhsi dambi uu gali karaa laakiin waa in dambiga ay wax cad oo dadku ku qancaan noqdo haddii aad dambi dikii la aftuubo dadku waxay warkayaan in codkoogii la aftuubay sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa xukuumadda madaxweyne mudane Muuse Biixi u sareeyo ninka in xorriyadiisa loo soo celiyo farahana laga qaado waxaan leenahay Soomaaliland Muuse waxa ka dhaxeeyay waxa weeye waa calan buu maradahay waxaan maleynayaa awdal iyo Hargeysa maradu kala goysay maanta maradii waad kala goysay cadde ila tahay Hargeysa burco xukunto awdal la aanad xukumin inta joogtana ama ka dabageey oo ku xidhisagana ama iska soo daa labadii habeen uu boorma joogay labadaba diyaar baanu haynaa la kulmo uu diiday inuu la kulmo odayaasha duqeydii gobolka awdal inuu la kulmo wuu diiday aroortii uu ka soo baxay waxaan leenahay maanta si degdeg ah loo sidaayay si degdeg ah eldii loo sii dayn waayo saacada baarlamaanku qabtay hadii lagu sii dayn waayo wixii ka yimaada awdal Muuse wada masuulka waxaan halkan isku soo taagnoon inaan kaga hadallo doonaynaa in xildhibaankaasi oo aanu arkayna in si sharci darro ah loo afduubay oo aanu dambi ku jirin waxaana noo cadeeyay xildhibaanadii golaha qaranka ahaa oo 51 ay ku ansixiyeen inaan waxba lagu haynin
waxaan leenahay xukuumaddu ha u hoggaansanto oo sharciga ha ku soo noqoto xildhibaankaana ha u soo celiso xorriyaddiisa dadka reer awdalla sidii odaygii igu horreeya oo ula hadlayna waxaan ka codsanaynaa inaanay waxba gadood samaynin sida rabshado iyo buuqbuuq isagoo xildhibaanku iska iman doona mar haddii la yidhi wax dembiyaba looma hayo saasaan ayaan leenahay haddii SNM lagu xidhay SNM annagaan maantana oggolayn shalayna oggolayn berrina oggolayn sax dambana oggolaanayn maanta annagaana naga bilaabana nagu daro hadday SNM tahay faral annaga faral nooma aha haddii la sii dayi waayo xildhibaankaana wax alle wixii la doonayaa dhici wallaahi awdal istiid baa sheegaysaa awdal dan baa dhici wallaahi yaan lagu tacatiin dadka maanta halkan duqeydii dhaqanka ee gobolka awdal waxaa isugu keenay arrinka xildhibaan maxamed abiib baa halkan isugu keenay marka hore xadhigga la xidhay ee xasaanaddii laga qaadin waan cambaaraynaynaa waana ka soo hor jeednaa wax la aqbali karayana maaha xeer ilaalintuna waxay cuskatay oo keliya tixgelisay hadalkii xilif ee ahaa ha la dilay inaa ka hargeysa lagu dhex dila lahaa intaasay xeer ilaalintu amarkiiba xilif bay qaadatay ilaahay dilkii uu ka badbaadiyo maanta waa xidhan yahay uun madaxweynena waxaan leenahay taariikhdu waxbay qortaan sani arrin maaha sani dal isku wadid maaha duqaydii waa kula ballantaad ka hoos baxday oo san warka ku hayno waxaan ku leenahay madaxweyne arrinka ka noqo fadhigaa fadhi uga noqo inankaa xorriyaddiisa uu siidaa wuuna taabtay meel buuna taabtay eheliyadda inanku ka sii dhashay jufada hoosena waxaan leenahay tolka xanuunka waan idinla qaybsanaynaa dhibta waan idin arkaynaa way idin xagxaganaysaa waan idinla mid baan nahay ha la isdejiyo samir badan ha la yeesho hadday inagu kalifto waxay inagu kaliftaan yeelaynaa haddii kale waan dhiraandhirinaynaa mudane madaxweyne adigoo oon gobolka ayagii kuugu ciyaarayno oon geela kuu qalayno oo saartaan kuu soo dhowaynay abaalgud waxaad nooga dhigtay inaad annaga maxaan ku idhaa inankayga aad xidho xildhibaanka aad xidho dee waxaad ogaataan u malaynayaa inaanaan malaha dhiig ba lahayn oo kici karin baad malaha ogaatay malaha taasaa ogaataan u malaynayaa laakiin waxa weeye waad ugu tala gashay gobolka malaha inaad dumiso laakiin ma dumaysa ganaad baan leenahay caqli baan leenahay ummaddayda aan ku hagnaan leenahay wax walbaan ku garannaan leenahay ma dumayno gobolka ka dhigi mayno aanu burburi mayno laakiin waxa weeye idinkaa iska kii qabanaynaa annagu idinkaa iska kii qabanaynaa sac geesa weynibaay geedka ma harsado loodana geedkooma daayo isna kagama dambeeyaa layidhi wallaahi inaan geedka la wada harsanaynin haddaad inankaasii degdega u soo dayi weydo weliba anigu waxaan kuugu darayaa soo daa baa lagu leeya hayso in abiib hayso ha kuu xidhnaado intuu doono hayso markaa wixii badan laga dheefana ha la arko arrintaasaan leego asalamu calaykum raxmatullahi barakaatu halkan waxaa la geela waxaa la yidhi haada habeenkacay wixii kaxashuu qabaa haada habeenkacay wixii kaxiyuu qabaa dadka halkan joogaayo waa dadkii madaxweyne shalay ku soo dhagow ku lahaa soo dhagow dadkii weeye dadka halkan joogaa waa dadkii dadka kula hadlayaa waa dadkaad wax ka doonaysay waa dadkaad wax ku tahay xubnahooga ka mid ah waxaan leenahay arrinkaasi waxaan u arkaynaa arrin arkaysaa ka duwan maamulkii iyo macaamiladii iyo sharci midnaa ku salaysay yaan u arkaynaa gudun baan wada haysanaa guduntaa waa la kala dhilin guduntaa inaga dhexaysaa la kala dhilin ha kala dhilin gudunteennaa ha kala dhilin inankaana xorriyaddii sidaa u qurux badan oo degdeg ah loogu soo celiyo